قسما بمن نشر الضياء قطر ستبقى حرة تسمو بالروح الأوفياء سيروا على جيونا سيروا وعلى ضياء الأنبياء قطر بقلب سيرة عز وأمجاد الإباء قطر الرجال الأولين حماتنا يوم النداء وحمائم يوم السلام جوارح يوم الفداء قطر الرجال الأولين حماتنا يوم النداء وحمائم يوم السلام جوارح يوم الفداء قسما 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 بمن رفع السماء قسما بمن نشر الضياء قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. sawaxanka dhegihiina soo gaadhaya waa astaanta boqortooyada qatar waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkaanu iniga diyaarinay qatar dalka qatar waxa uu dhacaa galbeedka Aasiya ama waqooyi bari jasiiradda Lamuda Carabta waa dal baaxad ahaan aad u yar marka laga reebo jihada koonfureed ee uu xuduudda kala leeyahay Sacuudiga inta soo hartay waxaa ka xiga biyaha gacanka Bershiya baaxadda uu ku fadhiyo dalkaasi waa 11,000 oo kiiloomitir oo wareega waa in ka yar marka laba loo qaybiyo baaxadda gobolka Awdal waxaa ku nool dad gaaraya 2.6 milyan oo qof dadka qadariga ah ee dalkaas u dhashay ayaa tiradaas ka ah 11.6 boqolkiiba oo u dhiganta 318,000 oo qof 88.4 boqolkiiba dadka waddanka waa ajaanib qatar waxa ay ka mid tahay wadamada dadkoodu ay ka yar yihiin ajaanibta la nool sidoo kale 94 boqolkiiba dadka waddankaas ka shaqeeya waa ajaanib qatar waa dalka ugu qanisan caalamka waa dalka dadkiisu ay soo galaan dakhli sanadeed lagu qiyaaso 128,000 sidoo kale dalku waa mid qiimeyntiisa heerka horumarka aadamuhu ay aad u sareyso waxaa lagu qeexaa dalka ugu horumarka sareeya wadamada carabta waa dal dhaqaale ballaaran haysta waa mid hodan ku ah saliidda khaas ahaan gaaska dabiiciga waa dalka saddexaad ee kaydka gaaska ee ugu badan haysta caalamka kadib Ruushka iyo Iiraan tan iyo 2012 qatar ayaa ahayd dalka caalamka ugu hodansan qatar dhaqaalaheedu kuma tiirsana wax soo saarka saliidda oo qura balse waa dal maalgelin ballaaran ku leh daafaha dunida in ka badan 100 milyan oo dollar ayaa ay dibadda maalgelin ahaan ugu leeyihiin waxyaabaha ay qatar ay leedahay ama ay qayb ka leedahay waxaa ka mid ah shirkadda baabuurta soo saarta iyo agabkooda ee Volkswagen oo ah tan Yurub ugu weyn waxaa kaloo ka mid ah hantideeda shirkadda Royal Dutch Shell oo kheyraadka dhulka soo saarta oo ay qayb ku leedahay waxaa kaloo ka mid ah garoonka caalamiga Heathrow ee London ku yaala oo iyaduna qayb ku leedahay waxaa kaloo ka mid ah bankiga Barclays ee UK ku yaala waxaa kaloo ka mid ah kooxda kubadda cagta ee PSG ee ka dhasha horyaalka Faransiiska waxaa kaloo ka mid ah bankiga Mareykanka Bank of America iyo bankiga beeraha Shiinaha Agriculture Bank of China iyo boqolaal shirkadood oo kale oo aan la soo koobi karin dhammaantood waxaa leh ama qayb ku leh shirkadda maalgelinta qatar taasoo maamusha hanti kor u dhaafaysa 315 bilyan oo dollar waxaana shirkadaas leh dowladda qatar oo sanad walba siisa hanti gaadhaysa 40 bilyan oo dollar si ay ugu samayso maalgelino kale qatar sidoo kale dhaqaalaha kaliya kuma xoogna
kuma xoog badnaa waxa uu kaloo jaangooyaa siyaasadda mandiqadda uu ku yaalo. Waa dal awoodiisa siyaasadeed ay muuqato. Waa dal awoodaha ku hardamaya bariga dhexe ee Maraykan iyo Iiraan la leh xiriir aad u adag oo qoto dheer. Waa dal saaxiib la ah siyaasad ahaan wadamada galbeed iyo kuwa barigaba. Sidoo kale dhanka warbaahinta ayay awood badan ku leeyihiin, waxayna leeyihiin muuqbaahiyaha afka dheer ee Al Jazeera iyo muuqbaahiyaal badan oo Carbeed. Sidoo kale waxay leeyihiin warbaahinta ciyaaraha laga daawado caalamka oo dhan. Waa dal aad u horumaray dhan walba, waana mid lagu tilmaamo inuu yahay dal qaab diimeed iyo mid aan diin ahaynba dalalka uu damaca ku leeyahay ku gala. Dal aad u yar dad iyo dhul ahaanba ee horumar intaa la gaaray ma jiro caalamka ilaa Qatar mooyaane. Halkan waa Nile Media, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdallah Axmed Saciid Waqooyi. Wixii intaas dheer waxaad ka dhugan doontaan YouTube-ka bartaanu ku noolnahay ee Nile Media. Isla socod wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudano.